وحوي تاريخ دو مركي هي تكون سجال بقول يوم حاكا قليدي جناسي عن صواب بالله الله فقيده جناسي جناسي وهدو سبب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام حالتك ورحمة الله وبركاته حالتك ورحمة حالد وفي عنها جناسي أيوه حكوكم مرة جناسي هي قلني وعوي جناسي وحالتك ورا بلساتها لقما شاكيين جناسي الله وش كأني ورا عادي أسكفي عنا أنا يقول هاي بابر واقعي سنتي بابر واقعي سنة وهي زيادة يبلني هو أنا أسودرس أيماني مشكلة أنا إلهي إحنا كوري واقر مركني أنت وصلت تولد أنا دقني مارت أنا هو صدح بلاد كل باد يأفر بواحد عن قرني أها أفر بلاد هي راب جوك مسين عبارة العاجن ويا بن هاي وهي عبارة لاصي مبياش واقورين مركن نيك أصلا نيك نعسى هاي أو مسؤول هاي مركو حسنا نيك معناها لا تجو يا بلدتك أو داخل بحجر الحرير وضدك قال سبح لون القرقان هاي مركن نيو أضاد ما تلوك صدنت waxaad ka cabanaysaa abaar horta waa xunta kow abaar baa ka jirta gobolka gobolka ma abaar xoogan baa ka jirta oo biyaash waa gureen eeber waxa weeye horta ilaaha abaar baa jin kara oo hadda gobolkii waa iska abaar xooluhu waa babaaya eeber abaar subaxda iska dhima horta ilaaha ma hadle ma garatay ilmihi xaala la ahta إن شاء الله هي هذا اللي نكون حرر شاربتين مرة هي رأينا اللي واحد الرياض بحياش أو ما حدا بحياش المسا حاجة بحياش وعوي ما شاسو هرتا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهي سياتها عادي والله في عنا محلها يعني سودو وافي عنها وما شانه هذا ما شاء يقوي مذو واسكال ذنه ما شانه إلهي دبعته نجا كوريا دبعته حاجة يرى إسكجرت دبعته يرى واحد إسكجرت أن أبار باكرت أو بأن أو يوم كانوا لي هي أيدي هنا لكو حرير شو أنا هذا واحد أنا ما عرفت ماشى أيوك هالليا نحن نقول صبير زي أدوك بالكورن حالة دادو ما شو دبعته كلو يرى إيش أديك أنا أورني وما أنت دبعته وينكم مير واقف جناح وحنس كده هاي أورني وربع دقي روكي مركو دقي الحمد لله هاي وريو بابي حولي وماشي نبرو كدي روبكي روبكي وروبكي داي إلا ديجان كم موقضي حقيقة ديجان كان قريه وين كم موقضي ما ندوي واقرت وكسو الدرس الله إليه هيه ما علبتي علمي وقع علبتي علمي وكربت هيه أري وحص ولا بحي واقر هيه مركب وحي جدا وبابا مركب محل صمينا يا مركب إلهي وأضاف بروا قيصر كانوا وقعوا يا هذا ورنا الآن بهينا بتشوف الحمد لله يا وراح الحبة هذا يمارين هي محل صمينا يا مركب بروا قيصرنا هي محل مركب محل هو غبر يا مركب محل صادب محل قبل كراهة ما واحد ربط أنا جناح سدوين مكتئب هي مركب واحد عاونا يا مركب ورني ومدار وهو يهرت الدقيسته أديك واحد أول مية ساعتين هرت ما مركب مقالة سوق لي ذي مية ساعتين مس waxaan kuu sheegayaa adiga waxaa tiri waxaan ka cabanayaa abaar ba'an ninkan uu ka cabanaya roob iyo aarankii ilaahay keenay qaaday xaabadii aruuriyay waxaan idin sheegayaa horta ilaahaygi hay'adaha alleedii waxa caawiyaan ilaahay waxaan ku manaysto ilaahay uu hideeyay ilaahayga iyaga caawiya inuu ida caawiyo mooya iyaga waxay caawin karaan lama arko waa iska maartay bil aadan maartay dadkanaguna haddii ay iyagu isgargaari lahaayeen aad maaragtay tuulada hadda uu sheegayo waxa dhan maaragtay la iskaashado aad dhihi lahaydeen halo tuuladaada ma hananiyo iska demi telefonka haatiri iska demi qolo arag dhinteen iska demi demi aragi waxba abaartooda ka sii dareysay iska daa ilaahay ma barisan waxaan idin sheegayo oranay dhageyso hay-adiina iyo qasacadiina ma anu ganacsada ma talaan idin soo jeedinayaan adiga waxaad tagaysaa tuuladii ku noqonaysaa tuulada kimaad aad ka timid aad ku noqonaysaa hay-ad iyo qacacac iyo ka bax waxaad u tagaysaa wadaad wadaadkii quraan akhris ahay quraan akhris ee culimada ugu weynaa deegaanka ayaad u tagaysaa waxaad u tagaysaa wadaadada dhan ee ugu sarreeya deegaanka waxaad leedahay ilaahay hala bariyo aniguna haddaan ganacsataan ahana waa deegaanka ka soo jeedana waa idin imaan haynaa
xoolaha inta hartay xataa hal la qalo ilaahay ha lagu bariyo wixii adigu inta idiin qalma inta la qalo ilaahay ha la bariyo roob doon ha la aqriyo eber waa xalaqaa hilib ma la soo maahan أنا حبض ما على غلا usug adiga ku sii jeesadana masagada yarta ah idiin hartay xataa inta karsataan ilaahay bariya ee quraanka waxa tira ilaahay roob nasiyo adiga wiilkaagan waxa adigu aad ka cabanaysid ee aad leedahay daadkii aruuriyo ninkaana raba anigu hadda ma dhihi karo tuuladaas soo guurto taas inta adigu meesha abaarta deg adna meesha ma dhihi karo waa dhibaato kale waxa fiican marka ilaahaygii koonkan iyo waxaas dhibaatadaas iyo keenay in la yiraahdo ilaahow nimcadaada meel markasta horta ilaahay in loo xamdi noqo marka waxaan kuu sheegayaa adiga waa noqonaysaa berri mahana berri ana idin imaanaya quraan akhriska ana ka soo qayb galay maadaama aan ganacsiga waxa wahay ugu weyn deegaanka ana baarka li qaban qabanaya muxuu ilaahay aan barino qorraxda aan istaagno ardada inta la soo bixiyo looxda madaxa saartaan ilaahay sidii roobdoonta lagu aqoon jiray waa sidaas roobdoona ku wada anna waa imaanaya deegaanka maadaama aan ka tirsanahay ana imaanaya soo wixii kale ee tabarxaad kale anaga istabarrucayna gaalo iyo baarka deegaanka sidaas adigana waxaan kuu sheegayaa waxaad samaynaysaa deegaanka waa imaahayna ganacsatada hay'ad ma sugayno hay'ad kale anaga isu hay'ada deegaanka quraan waxa naga dhiman quraanka in la akhriyo adiga waxa aad barwaaqo weey waxaanay wax adiga aad hadda dhibaatada ka taagan tahay oo hay'adda uu doonay nina raba bal ninkii hadda naga tagay meeshan abaartii xoolihi ka baaba'een macnaha xooluhu haddii dhowr neef aad soo gadato barwaaqadaas adiga adigu inta maarta dhowrka xabba labada hartay xataa hadda dhowr bari ay joogaan laba kale dhalayaan ayadoo sidaas ah hataa ilaa roobad haysataa inta masagada iyo digirta iyo qoraha inta qaadata aad dhulka beerto waa soo baxayaan waxaagaas ku soo go'ay ayaga xoolo dhalay xageed marka barwaaqo meel ilaahay quraanka ilaahay la yiraahdo ilaahu nasteexadan aan nasiiday ilaahu sharteeda gees naga maray marka quraan hal akhriyo berrina ana imaanaya maadaama ana deegaanka ganacsiga ugu weyn hatta waxa weeye hataan iraahno haddaan iraahdo ka waran anu ganacsiga ninka ugu weynaa ahay haddaan iraahdo wariyaa hooy adigu tuuladaada rar ee waxaad geeydaa tuuladaas hadda tuuladaas hadaan geey waa alla ka dheeri marka waxa weeye wax suurtagelayna maahan marka waxaad samaydaan ilaahay hal bariyo waan imaanaya insha Allah waxaad samaydaa ana idinka imaanayo صاحب يا أخلعي ilaahay hal bariyo ilaahay hal bariyo ilaahay hal bariyo warniyo dadkaanu dadkii yaaba waxay noqdeen bahay'adeey idaacadda odayaasha waxay rabaan anigu ganacsiga inaan karaamada iga lumiyaan odayaashaas baadiya intaan tago anoo dhamo ilaahay intaas aan tinasi bal anigu anoo dhihi kara quraan hal akhristo miyaan dhihi karaa dad dacwo iyo hay'ad ma dhahayo inta tagaan leeyahay quraan akhrista gebigoodba awal baxay iga ahayd 3,000 oo aan bixiyo waayo ama ka yarba inta odayaasha siisiyaan ilaahay bariya oo quraanka hal akhriyo deegaankana waa dhantahan ku waxa weeye sidaasan balay quraan waxaan ahayn ba akhri maayo